madashan haldoorka aqoon-yahanka reer awdal ay ku soo bandhigayeen ku biiritaankooda xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa ka qabsoontay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal taasoo ay ka soo qayb galeen hoggaanka sare xisbiga kulmiye aqoon-yahano siyaasiyiin madax dhaqameed dhalinyaro iyo marti kale gudoomiyaha gobolka Awdal ee xisbiga kulmiye Axmed Ismaaciil ayaa ku dhawaaqay xubnaha miisaanka leh ee kulmiye ku soo biiray Number 1 Professor Dahir Mahmoud Hadi. Professor Muhammad Diri Abdi. Professor Ibrahim Muhammad Umar. Professor Khadar Abdi Khairre oo linka jaamacadda Professor Jama Mohammed Pakistani Jama Pakistan Dr. Mohammed Usman Qofal Professor Abdi Ahmed God Professor Ahmed Abdullah Tallan Professor Abdurrahman Dahir Dr. Abdurrahman Umar Gildiri oo كندا اللوغيني بروفيسور محمد علي اللور محمود آدم سلطان جامع علم العقل صرصر محي الدين محمد afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafadhi siyaasi Maxamed Axmed Caalin Timbro chief caaqil Daahir Ismaan Cilmi iyo mas'uuliyiin kale ayaa si wada jir uga xog waramay faa'iidada ay madashani leedahay iyo waxa ay ka tarayso xisbiga kulmiye mustaqbalka Professor Dahir Mahmoud Hadi Professor Mohammed Diriye iyo Professor Jama Pakistani oo kamid ahaa xubnaha aqoon-yahanka ah ee ku soo biiray bahda xisbiga kulmiye ayaa sharaxay sababaha ay u xusheen inay ka mid noqdaan xisbul xaakimka talada Soomaaliland haya ee kulmiye musabix waxaan ku leenahay haddaan nahay horintayada hawshoodu ay waxbarashada tahay hubkooduna qalinka yahay hagaag noogu soo dhow waan ku hanweynay kulmiye ninkaan soo gelin waa number 1 xisbiyada Soomaaliland xaguu tagaya haddaan soobeeyo cidda nagu dhiirisay aniga igu tirtirsiisay inaan qaato kaarka ciyaarta siyaasadda waxa ugu horeeya Axmed Xaaji Daahir ayaa in badan igu xaranteeyay oo soo ku dhaqaaji aqoonyahanka waxa iskugu keenay dareen ay ka midaysnaayeen midaba iyo hadallo fara badan midaba dhegta la iskugu qabanayay dareenkaas malaha filla yar lagu xidhay xaggan iyo Hargeysa tiina waxay dhashay halkan in la iskugu yimaado kulmiye annagoo qaranka ummadda ka wakiilaan idin la xisaabtamayna waxaanu ugu biirnay markaan aragnay xisbigaasi wuxuu qabtay oo ummadda uu qabtay markaan aragnay way ayaanu ku biirnay waayo sacab abceed laguma qarin karo waayo horumarka uu xisbigaasi oo ku tallaabsaday waynu ognahay marka xisbi kale miyaan inagoo kan aragnay kuwana weli waxba qaban miyaan u footayna hogaamiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa madaxweyne xisbiga ayaa sharaxay qiimaha ay leedahay in la iska kaashado horumarinta bulshada iyo qaranka Soomaaliland isagoo iftiimiyay muhiimadda gaar ah ee xisbiga kulmiye ay u leedahay in haldoorka aqoon-yahanka gobolka Awdal ay si rasmi ah xisbiga ugu soo biiraan waxaan taasoo dareynaa oo ilaahay uga baryaynaa inuu naxariis ka waraabiyo qoyskiisii iyo ummadana ka siyaasariye iimaan Cabdirashiid Cali Cilmi oo kamid ah xildhibaanadii u horeeyay deegaanka xisbiga kulmiye ka soo baxay oo waliba ahaa waqtigaas oo xisbiga curdun ahaa ninkii ugu horeeyay number 1 ka ahaa xisbiga kulmiye ilaahay u naxariisto bahda aqoonta ee ku hubaysan qaranka oo xisbiga kulmiye soo xoojiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana kalena aan u baahnayn waana taan u diidaynaa inaanu soo helno aqoon bahda aqoonta oo dhan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi
Somaliland oo dhan waa aragnimadu waxay nabaraysaa noloshu inay ku horumarto aqoonta dadku waxay isku dhaafeen waa aqoon 25 sano ka bacdi Somaliland waxay u taagan tahay maanta waqtigii ay ku dhaqmi lahayd aqoonta ee ay ka bixi lahayd xeerasha jabka aragtideedu waxa weeye haddii aynu doonayno inaynu hore u marno waa inaynu aqoon dugsanaa haddaynu doonayno inaynu dalkeenna midayno oo aynu midowno aqoon baynu dugsanaynaa waayo aqoontu waxay naga joojinaysaa dulmiga aqoontu waxayna baraysaa cadaaladda saasaanu haddaanu kulmiyo dhahay dadka aqoonta u daba jabinayna oo u raadinaya aanu qancino aniga waajibkayga waxa weeye inaan qanciyo ninka la yidhaahdo Cirro oo iga soo horjeeda iyo Faysal iyo kuwa xisbigiisa inaan ku qanciyo wadadan ay hayaan inay tahay ka fiican tahay iyo dadkaba nina ku qasbi maayo wixii aynu hayno ayaanu ummadda hor dhigaynaa deetana waxaanu ku kalsoonahay waxaanu dadka hor dhigaynaa inuu noqonayo mid qarcinaya iska dhaaf publica dhexe dadka dhexe xisbiga naga soo horjeedo waayo barnaamijkayga waxa qaabeeyay oo dhisay manifestada xisbigu maanta ku hawlgalayo barnaamijka xisbiga maanta waxa qoray dhowr iyo konton aqoon yahay oo ka u yar bachelor yahay ilaa dhowr iyo toban PhD yihiin marka ma aha manifestaan waa qoray aqoontaas ka kaashatay taasaan nin walba qancinaysa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland